qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb galeen kulan lagaga hadlayay xuquuqul insaanka oo ka dhacay magaalada Muqdisho. wariyaheena Axmed Xasan Ibrahim ayaa warkaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray. kulankan oo ah wajigii labaad ee looga hadlayay arrimaha xuquuqul aadanaha ayaa maanta waxa uu ka dhacay xarunta wasaaradda howlaha guud gaadiidka badda iyo tamarta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana kulankan ka qayb galay mas'uuliyiin iyo shaqaale ka tirsan wasaaraddaasi. ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay Ambassador Yuusuf Barbari oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Geneva ahna u qaabilsanaha qaramada midoobay Soomaaliya ee arrimaha xuquuqul insaanka waxaana uu soo jeediyay talooyin muhiim ah oo ay ku qanceen dhammaan dadkii ka qayb galay. diinteena barakaysan dhaqankeena suuban iyo kadibna wixii bini'aadam isku afkartay oo shuruuc laga soo saaray ama ha noqdeen kuwa dalka sida dalkeena oo kale ama ha noqdeen kuwa caalamiga ah garyaqaanada ay la fadhiyaan iyagaa kollayta wixii shuruucda sida gaarka ah wax ka oran doona. su-aasha shirkan daadaynaysa waxa weeye waa maxay xuquuqul insaanka. qof kastoo inaga mid ah waxaan ubaahay fikrad ka haysto siyaasadda dowladdeena waxay ku salaysan tahay xaqdhoorka iyo horumarinta xuquuqul insaanka. kulankan ayaa inta uu socday waxaa dood kulal ay dhex martay dhammaan ka qaybgalayaashii kulankaasi iyadoona ugu dambeyntii la taliyaha madaxweynaha dhanka xuquuqul aadanaha Abukaate Abuukar uu ka jawaabay su'aalo ay weydiiyeen dadkii ka qayb galay kulankan. waa kan culusid ka military si culus marka ku silinaha laakiin kan oo xeerka ciqaabta ee Soomaaliyeed asaga 15 sano ugu badan wax ka soo dhacay dawladda Soomaaliyeed ma cafiso. صلاحنا على شو الشيء أما سكر على وجه الشيء هذه محكمة حكمته ما الدولة تصل مع في السوق وعقوصها كان عقابته أو بلتير عقوصها كان عقابته لو بلتير لو كلام لو بقول له بقول كمان يبقى كلام dhibaatooyinka anaga nalaguha ayona waa sheegnay xuquuqda anaga aan leenahay oo inaan waxbarasho helno ah oo biyo nadiif helno guri ku habboon degaan oo nal iyo nolol dhameystiran leh bulshada inay xaq u leedahay waa tilmaamnay wadooyin dhameystiran inaan helno noloshaas inay xuquuqda tahay waa gartaan dadka waana tilmaameen bedelkeeda in badeena dadka kalluumaysatada ay ka soo qaxeen maanta aad hortaada cabashadooda arkaysay oo doomiye yar yar ay ku kalluumaysanayeen maraakiib biyo ku gediye